kusoo dhawaada barashada. Maanta waxaan baranaynaa sorting in tableka sida loo sort gareeyo. Sortkaasi waxaa laga wadaa kala soocis daatada markay isku qasan tahay ama aysan isku aadisnayn baa waxaa la dhahaa sorting. Marka waxaad furanaysaa casharkeeni ku saabsan tableka student folder 2 furaysaa. marka furtid t waa taabanaysaa kadibna table 2 waa furaysaa. marka daatadan saa ka aragtid iskuma aadana. marka conference system hadda fiirisid conference system kaani waxaa la rabaa inuu ugu dambeeyo. sababtan waxaa keenaysa taariikhda June 30 2002 markuu inuu ugu dambeeyo. marka daatadan iskuma toostoosna marka waa isku toostoosinaya. marka sidee iskugu toostoosinaa taasi waa su'aal. jawaabteedana waxaa weeye column-ka rabtid ku dhufo kadibna layout kasii tag. marka data formula aad joogtid dhanka waxaad dooranaysaa sort baad dooranaysaa. sort markaad dooratid boxkana kusoo baxayo sort by waxaad ka dooranaysaa product category-ga oo ah retail price. retail price kaasi aad saa ka arkid asigana option buu leeyahay. optionkaas oo ah ascending iyo descending. marka ascending baa u dayninaa kadibna then by baa dooranaysaa. then by waxaa kasii tegaynaa category-ga release date. release date-ka baa meeshaan waxaan ka dhigaynaa descending baan ka dhigaynaa. descending markaan ka dhigno then waxaa noogu xigo then by gaasi waxaa kasii tegaynaa product. marka aan dhammayno waxaa fiirinaysaa my list has header row-gaasaa ku daynaysaa kadibna okay baa leedahay. saa ka aragtid system conference-ga ugu dambeeya. soo marka haddeertaan daatada saas ayaa laiskugu toostoosiyaa. waxaana loogu talgalay markii aad data badan lagu soo diro email ha lagugu soo diro ama isheeg adiga qof kale ha ku dhiibo flash disk ha kugu soo shubo. daatadaasi kala sooc baa lagu dhihi karaa. marka waa inaad kala sooci kartaa, isku aadin kartaa ama aad isku toostoosin kartaa. marka cashirkeena waa ka kan kaloo nagu xigana waxaa weeye add table formula. sida tableka formula loogu soo daro. marka kan waa iska xireynaa cashirka don't save baa leedahay ha save gareenin. kadibna student folderka markaad joogtid waxaad furaysaa sales baa taabanaysaa. sales tablekaasaa furaysaa. markaa furto sales table kuleed gareenaynaa totalka marka meesha totalka hoosteeda selkaasaad dooranaysaa. markaad dooratid waxaad tegaysaa layout markaad tegtid waxaad ku dhufanaysaa markaad joogtid data qaybta datada markaad joogtid formula dooranaysaa. formulada markaad dooratid saa ka aragtid formulada waxay leedahay equal sum lefty. okay leftyga rabnaa inaan calculation u sameyno oo anagoo isticmaalayno column-kan. okay sales and profit baan isku calculate gareynaynaa. marka waxaan leenahay kadibna number format-ka waxaad dooranaysaa number format-ka rabtida dooranaysaa. marka number format-kaasaan dooranaynaa kadibna okay baa leedahay. saa ka aragtid 148,000 then waa kaa. marka qaybta kale hoosaad tegaysaa kadibna sidoo kale formulada ku dhufanaysaa. wuxuu leeyahay above. so waxaan leenahay number format baan leenahay. then meesha above-kaasi waxaad gelinaysaa lefty baa gelinaysaa. bracketka waxaad ka tiraysaa above then waxaad ku qoraysaa lefty baa ku qoraysaa. leftyga calculate garee baan leedahay. saa ka aragtid leftygu calculate gareeye. then haddana waxaad ku dhufanaysaa qaybta kale ku hooseyso then meesha lefty geli. ayagoo dhan saasaad ku buuxinaysaa.
marka waa noo total gareysan yahay marka total grand totalka haddaa aragtid waa 1,148,650 pound marka waa numbers kuwani hadeertaan lacag lama dhihi karo sida kasoo qaadkan hadeertaan formatkiisa wuu qaldan yahay marka waa inaan tirnaa formatka waa inaan bedelnaa kadibna formulada ku dhufanaysaa left then formatka waxaad dooranaysaa ###0.00 kaasaad dooranaysaa kadibna okay so marka waxaan rabnaa inaan format gareyno aan lacag ka dhigno sidee lacag ooga dhigaysaa okay saleska markaad joogtid numberka 121,500 lambarka koowaad baad hor dhigaysaa baad gadaal dhigaysaa flash pointiga then waxaad qaybtan kaliya baan formatka u sameynaynaa then meeshaas waxaan ka dhigaynaa bound baan ka dhigaynaa intana bound ka dhig ayagoo dhan hadeertaan bound baa ka dhigay marka saasaad ugu buuxbuuxinaysa marka bound markaa ka dhigaysid kasoo qaad kan waa number soo maaha waxaan rabnaa calaamada boundka inaan kusoo darno boundku marka waa lacagta britishka marka boundkaasaad hadduu kan kuu joogo waxaad dooranaysaa boundkaasaad dooranaysaa kadibna okay waa leedahay kadibna saasuu isku bedelaya number formatka kaliya ka bedelaysaa okay waxaa noogu xigo convert a table into a text convert a table into a text sida table loogu bedelo qoraal caadi ah looga dhigo okay tableka waxa u bedelaysaa qoraal marka waxaa furaysaa student folderka waxaad ku dhufanaysaa earnings dooranaysaa cashirkeena earnings so earnings markay kuu furanto tablekaad dooranaysaa tableka markuu kuu dooran yahay waxaa ku dhufanaysaa layout then layout datada korkeeda waxaad tegaysaa convert to a text optionkaasaad dooranaysaa then optionka aan rabno waxaa weeye tabs okay baa leenahay then saa ka aragtid tabskaasi waxaad ka aragtaa in tablekii uu isbedelay okay haddaa rabtidna inaad dib ugu celiso siduu ahaa table haddaa rabtid inaad ka dhigtid optionka kale kuu banaan waxaa waaye waa hareynaysaa qoraalka control a waa taabanaysaa control plus a markaad taawatid insert taabka ku dhufanaysaa kadibna tableka dooranaysaa tableka markay isheeg falaarta yar aad taawatid drop downkaas waxaa kasii tegaysaa convert text to table markaan marna waxaan ka dhignay qoraal aan ka dhignay haddana table baa rabnaa inaan u celino then convert baa leedahay text to table ka dhigaa leedahay then waxaa leenahay marka optionkaas markastoo inuu ku dooran yahay tabska then okay aa ku dhufanaysaa then waxaa ka aragtid tablekiisii ayuu kusoo noqday marka practicalka ku celceli waa mahadsantihiin